suxufiga weyn ee ruugcadaaga Cabdiraxmaan Xirsi Heelo oo waraysi gaar ah siinayay TV-ga caalamiga ee Ariel TV ayaa ka hadlay hadallo dhawaan ay bulshada Soomaaliland si weyn isula dhexmarayeen oo ka soo baxay qaar ka mid ah salaadiinta Soomaaliland waxaanu salaadiinta Soomaaliland ugu baaqay inay joojiyaan waxyaabaha bulshada Soomaaliland ka dhex korin kara colaadda waxaanu sidoo kale u soo jeediyay inay ka shaqeeyaan walaalaynta iyo isu soo jiidida ummadda Soomaaliland. waxaad moodaa qabyaaladii inay ummadeennii ay farabaas ku hayso waxaana waxa ugu wacnaa doorashadii ugu dambeysay inuu galay oo noqotay doorasho qabyaaladeed oo aad iyo aad ummadda u kala qaybisay waxay ahayd mar haddaynu doorasho ka soo baxnay in ummadda boggooda burcad laysu mariyo oo maxaa xiqdiga iyo buqdiga dhexdooda ku jira laga saaro oo ummaddu ay noqoto ummad walaala oo meel u wada jeeda kawaana hoggaanka laga rabay inuu ummadda isu keeno waxa kale oo laga rabay salaadiintu inay maadaama markii hore hadday reer ku ololeeyeen oo ku odeeyeen oo dhinac horteen iyagoo reeraa in maanta aan Soomaaliland reernimo u baahnayn Soomaaliland qarannimo u baahan Soomaaliland waxay ku iibsamaysaa oo halkii daahir riyaale doorasho ku iibsamaysaa u barigeeyay anaga waxaan leenahay Soomaaliland qarannimo ay ku iibsamaysaa iyadoo mid la wada yahay aan qabyaaladeen arrimaha maalmahan socday ee qofka damiirka leh iyo qofka wanaagsan ee xalaasha ah ee Somalilandarka damqay waxay ahayn hadallada salaadiinta is dhaafsanayaan iyo cuqaasha iyo dadka marba inta la soo ururiyo meel soo fadhiisanaya arrinkaasi waxa weeye arrin khaladkiisuna wuxuu ka bilaabmay maalintii oo Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi Sultan Cabdiraxmaan Diiri oo burco ka hadlay ee uu jeegaantii waxa uu ka hadlayay waxaan oran lahaa arrinkaasi uu khaldana Xasan oo ku hadlay ummadda xilligan la isu keenay ahayd ma ahayn xilli jeegaan iyo meegaan la kala samaysto mar haddii arrinka kaarka mar la isticmaalayo kaarkaasi mar lagu faa'iisay waxa jeclay in ummadda lagu soo celcelino mar dambe la isula iman ee ay ahayd in maxay ahayd ummadda wixii walaalaynaya la isu keeno arrinka Xasan ku khaldanaa odayaasha laftooda ka daba hadlayna runtii iyaga laftooda wax badan may soo kordhin kasto caradu ka keentay oo la yiri maxay ahayd baroorta maxaa urga ka keenay waxa fiicneed iyana inay dulqaad sameeyaan geesta kalena waxa uu ka hadlay cabashooyin ka soo baxay saxaafadda Soomaaliland oo ku aadanaa safarada madaxweynaha Soomaaliland iyo inaanu la hadlin warbaahinta xilliyada uu dalka ka baxay ama soo degayo saxaafaddu inta dambe way cabanaysaa waliba maalintii u dambeysay madaxweynuhu soo degay uu soo dhaafay madaxweynuhu faratoon buu madaxweynuhu la hadal faratoon demay dooran faratoon madaxweyne adiga ahayd in ummadda la hadasho saddexda qodob ka soo wada hadashay nabadgelyada dhaqaalaha ganacsiga intaas un baad u sheegi lahayd saxafiyiinta marka saxafiyiintu ku weyn oran jirnay ku dhaadan jirnay weeye ummadayna sugaysana ummadaynu la hadli jirnay waxa fiican inaad adigu ummadda la hadasho ummadda inaad la hadasho hadalka kamaad biqi jiray kamaad gaban jirin inaad la hadasho weeyaan aad baan u jeclaa inaad la hadasho oo u sheegto wixii jira mar walbana aad public address samayso oo toddobaadkiiba hal mar inta soo taagto xaruntaada madaxtooyada ummadda tiraahdo waa toddobaadkii madaxweynaha waxaas ay noo soo kordhay waxaasna way naga khaldayeen ummaddani waa hadal ku nool iyo war ku nool yaan war khalad lagaga geyni yaan waxa jira dad badan oo ku ag jooga oo wanaaggaaga jeclay oo aan jeclayn inaad horumar gaadho oo aan jeclayn inaad dalkan horumar ku wado qaar badan in markaad la sheekaysato malamoy baqdiniyo waxay ka tahay afka bade soo hadal qaadimaan qofka uu markaad ag joogto waxay ku fiicantahay inaad wax ku khaldayna ka qabato wuxuu ku saxayna taad ku saxantay arrinkaaga ugu dambeyntii suxufiga weyn ee Cabdiraxmaan Xirsi Heelo ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada Soomaaliland ee ku sugan xuduudada Soomaaliland waxaanu bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay si weyn ula shaqeeyaan ciidamada Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan ciidamada ku sugan xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland oo muddooyinkii ugu dambeysay ay Soomaaliland iyo Puntland ka dhex taagneyd colaadii ciidamada la isbarbar taago ciidamada xuduudahoodii dalkooda bay joogaan arrimaha halka ka soo cusboonaaday waa arrimo la isu habar wacday idina isu habar wacday reer Soomaaliland oo ciidamadiina garab siiya xuduudahoodii bay joogaan cidna kuma adeedon cidna kuma gardaroon Axmed Khalid Farax Ariel TV Hargeysa.